waxa uu ku koray xariyaha qaxootiga ee Dhaab iyo Ifo waxa uu wali cod u yahay dadkii uu ka soo tagay isagoo ku nool wadanka Mareykanka muddo kooban ayuu halkaasi joogaa haddana waxa uu tartamayaa xilka golaha deegaanka xaafadda uu ku nool yahay qixi iyo dhibaatadii dalkeena Soomaaliyeed soo gaartay anigoo 6 bil jiro baa waxa uu soo qaxnay xariyaha qaxootiga ee Dhaab ee dalka Kenya Suud Olaad waa wiil dhalinyaro Soomaali ah oo aan waligii ku hoos noolaan dawlad Soomaaliyeed waxana uu ku koray xariyaha qaxooti iyo dal aan u lahayn marba saa isku leeyahay berita laabanaysan 94 laabanaysan 93 laabanaysan waxaynu u qaadatay muddo 20 sano ah laakiin maanta wuxuu dareemayaa inuu haysto fursad weyn oo uusan ka helin wadankiisa taasoo ah inuu u tartami karo xilka siyaasadda golaha deegaanka xaafadda uu degan yahay isagoo mustaqbal fiican kale siyaasadda waaye marka hadda mustaqbalkaaga rajada aad ka qabto doorashadan aad galayso waxaan u maleynayaa haddii la yiraahdo maanta Suud Olaad dadka fahmi kara marka dadka laga yimaado dadkii soo maray xariyaha qaxootiga ee dalaanta ku dhacday ee garan kara qaxootinimada dhibaatada ay leedahay ee garan kara qurba joogta waxaan u maleynayaa waxa kugu filan intii kugu deegaanka ahayd ee Ifo iyo Dhaab iyo kala timid haday ku codeeyaan wallahi ha waran qaran baan noqonay Dhaab xarada ka imaaday dad badan oo ka soo dhoofaha meeshan degan haddaba waraysi gaar ah oo aan ka qaadnay Suud Olaad oo u taagan xilka golaha deegaanka xaafadda 6 ee magaalada Minneapolis waxaad ka daawan kartaan barta YouTube-ka ee Hanolaato ama waxaad ka dhageysan kartaa mobile-kaaga adoo isticmaalaya podcast-ka mahadsanid Soomaalida u hiilisay Hanolaato